aragtida gooni-goosadka waxa ay khatar ku yihiin amniga dalka si la mid ah argagixisada iyo faragelinta shisheeye waa qodobada ka soo baxay shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya 8 qodob oo qaraarkan oo ay ansixiyaan golaha wasiirada goordhow ayaan warbixintan ku soo koobi doonaa waxaan ahay Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira bartayda Facebook iyo YouTube-ka si aad uga mid noqotaan saaxiibada igu xiran halkan kala socda wararka iyo warbixinada muuqaalada aan had iyo jeer ku soo baahiyo goordhow shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo soo gabagaboway isla markaana uu shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa ay goluhu ay meel mariyeen qaraar ka kooban 8 qodob oo la sheegay in ay khatar ku yihiin amniga guud iyo xasiloonida Soomaaliya qaraarkan golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya goordhow ay ansixiyeen waxa qayb ka ah faragelinta shisheeye khatarta argagixisada iyo si la mid ah aragtida gooni-goosadka oo loo fasiray in ay tahay waxa ay Somaliland baadigoobaysay 30 sano ee ugu dambeysay guud ahaan waxa la sheegay 8 qodob in ay khatar ku yihiin amniga iyo xasiloonida dalka 1 argagixisada 2 aragtida gooni-goosadka 3 dawlad nugeelka 4 xuduudaha beylahda 5 faragelinta shisheeyaha 6 isbeddelka cimilada 7 khatarta tiknoolajiyadda 8 khataraha bulshada waxaase meelmarinta qaraarkan golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya uu ku soo aadaya xilli xiisada u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya meel adag ay gaartay isla markaana ay ku lug leedahay maamulka Somaliland oo muddo baadigoobaya in Soomaaliya inteeda kale uu ka go'o golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya qaraarkan ay meel mariyeen waxa la sheegay in loo gudbin doono golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyaga oo ka doodi doona isla markaana rasmi xeer ahaan u soo saari doona qaraarkan ayaa ku soo aadaya xilli dawladda federaalka Soomaaliya looga fadhiyay in jawaab adag ay ka bixiso hadalkii xalay ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kaas oo sheegay inuusan waxba iska bedelin aragtida Itoobiya ee heshiiska is-afgaradka Somaliland ay la gaareen ee ku qotomay dhinaca badda wixii warar ay ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan la soco oo isha ku hay page-kayga